cunista iyo ka ganacsiga qaadka ayaa magaalada Saylac waxay ka noqotay nolol maalmeedka caadiga iyadoona magaalada Saylac aad ku arkaysay adhig markaasi tiro badan oo iyagu qaadka ka shaxaadaya goobaha qaadka lagu iibiyo haddaba qaar ka tirsan qaadleyda magaalada Saylac oo mikrofoonka la dhaqaanay ayaa noo sheegay sida adhigani qaadka uga shaxaado iyo sida uu cuno iyagoona tilmaamay in qaadka ay soo doontaan saddexda waqti ee caadiga iyagoona tilmaamay in ay qaadka maalintiiba cunaan shirmaduuf oo qaada haddaba qaadleyda waxaa hadaladooda ka mid ahaa qayl waxa weyn ma seexato ilaa jabanaha aroortii 6 subaxnimo timaada ilaa 7 tagtaa markay mijinjaada cunto 12 soo noqotaa ilaa 3 galabnimo halkaas fadhidaa kolkay cunto waxa garaabay ee jaadka ilaa mijinjaada way socotaa 8 habeenimo ilaa 9 halkaas timaada way qayshaa biyo raacinta ugu dambeynta biyo raacinta cuntaa ugu dambeynta saacadan miiska ka rawaxaya ayayna rawaxday weeytaa ilmaha yarna iyada dhashay oo wanuujisu marka xoolaha ayaa ka daran dadka jaadka ridaasi 4 nin jaadka inta cunaya way cuntaa waana jaad qabax hadii jaadku habsaamo ciideeda waa laga yaabaa way qayshaa biyo raaciskana way qaataa cawsad maan ugu daraa yaro mijin yaro in yaro tuuray habeenkii waxay timaadaa 8 subaxdiina waxay soo kala meelaha 5 timaadaa ilaa 7 iyo timaadaa marka hadda maxay ridaas waxaan leeyahay si kastiba ha qaatee maaha markii ugu horeysay ee la arko adhi qaad cunaya balse adhiga magaalada Saylac ayaa iyagu qaadka si qeyraacada u cuna iyadoona dadweynaha ku dhaqan magaalada Saylac ay arrinkani aad u la yaabeen adhi markaasi iyagu qaad cunaya oo qaadkii ay ka soo saartay xaraaradii guryahooga isla markaana goobaha suuqa aad ku arkaysay iyagoo qaadka shaxaaday waa Cabdisamed Maxamed Cabdilaahi Shilida News magaalada Saylac.